kulan wacna wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaan kuna soo dhawaada wararka naga soo gaaraya dhankaas iyo wadanka Ethiopia iyo xaaladihii u dambeeyay qodobada aynu wararkeena ku soo qaadan doono waxa kamid ah dowladda mareykanka ayaa waxa ay ku boorisay dowladda mareykanka ayaa waxay ku boorinaysaa in dowladda Ethiopia iyo kooxda TPLF ay soo afjaraan dagaalada ka socda wadanka sidoo kalena waxay sheegtay hadii ay soo afjaraan dagaaladaasi in cunaqabatayn ay ka badbaadayaan sidoo kale waxayna soo qaadan doonaa xaaladaha iyaguna ka taagan galbeedka gobolka City waxayna eegi doonaa dagaalada iyaguna waqooyiga Ethiopia ilaa haatanba ka soconaya qodobadaas iyo kuwa kale ayaynu halkani ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal ku soo dhawaada channelka oo subscribe noo saar like noo saar la sii wadaag asxaabtaada haddii aynu ku bilaawno dowladda mareykanka ayaa ku boorinaysa dowladda Ethiopia iyo jabhadda TPLF iyo kooxaha kale ee ka dagaalamaya in ay soo afjaraan colaadan ka taagan gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia ayna ogolaadaan in gargaar bini'aadanimo uu gaaro malaayiin dad oo u baahan gargaarkaasi haddii khilaafka joogsan waayo ayay dowladda mareykanku sheegtay in mas'uuliyiinta muhiimka ah ee dowladda iyo TPLF ay la kulmi karaan cunaqabatayn xagga socdaalka iyo maaliyadda mareykanka ah siyaha kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee bariga Afrika Brian Hunter ayaa sheegay in dowladda mareykanka ay doonayso in la soo afjaro colaadda 10 bilood ee ka socotay Tigray haddii dowladda Ethiopia iyo kooxda TPLF ay qaadaan talaabooyin macno leh si ay u ogolaadaan wada hadallada xabad joojinta ayna ogolaadaan howlo gaarka bini'aadanimo ah ayuu carqaladeynta lahayn mareykanku wuxuuna diyaar u yahay in uu gacan ka geysto abaabulida kaalamada Ethiopia si ay u soo kabsato dibna ugu soo nooleeyaan dhaqaalaheedii talaabooyinkaas macnaha leh waxa kamid ah in la aqbalo dadaalada dhexdhexaadinta oo uu hogaaminayo midowga Afrika ogolaanshaha waaxda xaajoodka iyadoo oo aan wax shuruud ah lagu xirin iyo in la aqbalo martiqaadka wada hadallada bilowga ah ayuu yiri siyaha kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda ee bariga Afrika Brian Hunter waxa uu sheegay in dhammaan dadaaladii kale ee lagu cadaadin lahaa dhinacyada dagaalka ka dhaxeeya si nabad ah loogu dhameyn lahaa dagaalkan ay fashilmeen taasina ay keentay hanjabaad cunaqabatayn ee uu saxiixay madaxweynaha John Biden maalinimadii Jimcadii ee la soo dhaafay ciidamada Ethiopia ayaa gudaha u galay gobolka Tigray bishii November ee la soo dhaafay kadib bilooyin ay socdeen xiisada u dhaxaysay xukuumadda ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo xisbiga talada haya ee Tigray ee TPLF taasina waxa warbixintaasi ay ka soo baxday dankaas iyo mareykanku madaxweynaha iyo siyahayahooda iyo khubaro kala duwanba waxa ay ku baaqeen in gabi ahaanba la soo afjaro dagaaladani ee ka socda wadanka Ethiopia haddii kalena aysan soo gaarsiin doonin gargaar bini'aadanimo ayna u daneeyaan shacabka ay halkaasi ku godooman ayay yiraahdeen dowladda mareykanka haddii aynu u gudubno dhankaas iyo dagaalada waqooyiga gaar ahaan gobolka Axmaarada ka socdo waxa la soo sheegayaa in 24 saacadoodkii iyo xalayto iyo shalay dagaalo culus ay ka socdeen aaga Gondar iyo sidoo kale aaga Disay waxaana la soo sheegayaa khasaare aad u baahsan balse labada dhinacba waxay sheeganayaan guulo lama ogo xaalka halka uu mariyo balse xooga halkaasi inaga soo gaaraya waxay sheegayaan in guulii u dambeeyay ay ku gacan sareeyeen ciidamada militariga Ethiopia TPLF uu jab weyn uu soo gaaray afhayeenka Tigray oo marka hadlayay TV-ga afka Tigray ku hadla ayaa waxa uu sheegay in dagaaladii u dambeeyay iyagu ku gacan sareeyeen waxa uu beeneeyay in ciidamada militariga Ethiopia wararka ay soo sii daynayaan in uu yahay waxba kama jiraan oo ay deegaano horla ay haatan bahaystaan waxa uu sheegay in Gondar gabi ahaanteeda deegaanooyinkii u badna ay iyagu haatanba gacanta ku dhigeen halkaasina waxa ka muuqata dadaalada ay TPLF ugu jirto in gabi ahaan bay la weerarayaan gobolka Axmaarada
balse ciidamada huwanta ah ee axmaaradu ay iyagu helinayso ayaa waxaa la sheegayaa in axmaaradu ay iyagu dhexdooda ay dagaalo ka bilaabmeen markii jab weyn ay ka soo gaareen ciidamada TPLF. waxaana la sheegayaa in dhexdooda uu ka bilaabay isqabqabsi iyo maamul xumo halkaasi ka jirto. qaar ka mid ah axmaarada iyo ciidamadeeda ayaa waxaa la sheegayaa in ay isku dhiibeen TPLF, halkaasina waxaa ka muuqata haddii khilaaf uu soo dhexgalo jabhadahani in ay ku guuleysan karaan kooxda TPLF. dagaaladani u dambeynta ee haatanba socda, balse dagaaladani lagu soo afjarayo weli ma muuqato oo dagaalka halkiisii ayuu ka sii socda. lama hubo goorta ay soo afjarmi doono dagaaladani, balse khubarooyin kala duwan iyo ugu horeyso dowladda mareykanka sidoo kale midowga Afrika ayaa iyaguna waxay wadaan dadaalo ay ku soo afjari lahaayeen dagaalkani waqooyiga Ethiopia ee gaar ahaan gobolka axmaarada ka socdo, sidoo kalena gebi ahaanba dagaalada ka wada socda wadanka Ethiopia in ay soo afjaraan. dadaaladaasi weli wax ka hirgale ma jirto, balse dhinacyadu iyagu waxa ay ku jiraan baaqitaan oo kaliya. labada dhinacna waxaa la sheegayaa in miiska wada hadallada ay imaani doonaan labada mas-uuliyiintan iraade ee kala hogaaminaya ay ugu horeyso dowladda dhexe Ethiopia iyo sidoo kale TPLF kooxda hogaamiyahooda ayaa waxaa loogu baaqay in ay iyagu miiska wada hadalka yimaadaan, xabad joojinna ay ku dhawaaqaan. lama oga goorta ay ku dhawaaqi doonaan labadan xubnood ayna isku imaani doonaan, balse hadalladaasi waxay ka soo baxeen midowga Afrika iyo sidoo kale beesha caalamka. lama oga goorta ay iyaguna ay beesha caalamku ama haddii ay raggan isu imaan waayaan ama dagaalo hor la ay sii kiciyaan cunaqabatayn ayay kala kulmi doonaan ayay yiraahdeen John Biden mareykanka. sidoo kalena waxaana xayiraad weyn laga saari doonaa duulimaadada caalamiga maadaama inta badan madaxdu halkaasi markay dagaalo bacsan ay ka dhacaan ay u safri jireen ama qaar ka mid ah ay u carari jireen dhankaas iyo qurbaha sida looga bartay wadamo horay colaadyo fara badan ay ka dhaceen oo iyaguba mas'uuliyiintoodii ay kala carareen sida Afghanistan mas'uuliyiintii kuwii ugu sarreysay oo haatanba u wada carray dhankaas iyo mareykanka. balse mareykanku waxa uu ku baaqayaa in Abiy Ahmed iyo kooxda TPLF ay soo afjaraan. wararkaasi wixii ka soo kordha saaxiibayaal halkan ayaynu idinkula wadaagi doonaa. intaan warkan war la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidaas iyo nabadgelyo.